بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة حلقة عصب إن شاء الله BCY TV وحاينو حلقة عصب بإذن الله الكريم كجهد لدونا سيدي عادة إنه هاي قصص تدك ماركتي صو مسلمة قصص كان سببتها إنه جهد لينانا وحويان يعني دين الإسلام كودن ويكون لسنتها هاي دعوة ما دام أي دعوة كل لسنتها هاي أو إلا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هي أنبيادي أردن دتك اللوسو دري قف والبقى كمد أو دعوة قاطع أو أقبلا وحويان وحكمد نقول يا مركب وجه رئيس أولو الألباب دتك عقل عليه ما دام أي دد عقل الليهين أو كفي عن بني آدم ككله أي مستحقين ويهين إلهي سبحانه وتعالى يعني إنه كو أبال مريو تشنده أما تشنوين كإلهي هاي نو أبال مريو وحي مستحقين ويهين داد كاني أما أي حقو يشين إن داد ككله اللوغة شاكيو سيدا أينو ماركتي كسو لغانو قصصكي أي كسو مسلمين أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب صحابة رسول الله dhammaan dadkii soo muslimay oo dhan qisaskaas oo runtii inoo kordhinaya ma garanaysaa iimaan inoo kordhinaya waayo qofkanu mar baa jirtay aanu rumaysnayn waxba mar baa jirtay uu ahaa islaamka cadow ku ahaa sida Abu Sufyaan oo kale Khalid bin Walid oo kale ilaa uu gaaray heer uu la dagaalamo ilaa uu gaaro heer uu maaragtay yani وإسكت ضيا إن وتشبيه حتى إسلامك ما دام يعني بني آدم كانوا وياهي وحقوا قلبك أذك أو أي أذك تاي شو ما قرنا يصدقين تسي سهلا إنه قاطع بدنا أبوي أذك تاي يدو أي كان يسوع أذي قاسي أذات كي هراء وحي أي من سنين شرين سيد أبو طالب وكله ما قرنا يصاي أو لقى كرواي ورشهادة ده بل ما garanaysaa يعني bal ku dhawaaqun kaliya maadaama ay caynkaas tahay ayaynu qisooyinkan waxaynu uga jeednaa in iimaankeenna ay kordhiyaan biidnillaahi alkariim ilaahayna iimaanka haynoo kordhiyo khatmadana khayr inoogu khatimo waa yahay waxaynu maanta nasiib u helnay nin ka mida dadka masaarida ah oo maaragtay lagu qiyaaso ilaa 5 milyan lagu qiyaaso taqriiban haddaanay ka badnaynba waddanka Masar population aad u weyn baa ku nool oo fara badan marka kuwaas bay ka mid yihiin waxaynu markaa bal insha Allah biidnillaahi kariim xalqadan ku eegaynaa Wadiic Sulaymaan ninkaasi lagu magacaabo oo ah nin Masri ah ahaan jirayna ragga kaniisadda ee duuliya ma garanaysaa diinta Kiristaanka bal waa yahay isagoo ka sheekaynaya sidii uu ku soo islaamay أيين حلقة كويجينا. مع رسول الله محمد بن عبد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأؤمن أن المسيح عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله خلقه الله بكلمة كن فكان وأمه مريم صديقة وكان يأكلان الطعام لئلا يهلكان لا يزيدان عن هذا القدر. waxay naga soo dhaxgalay xayeysiis baadii jeer fiidiyoyada ka buuxa xadiis baax maxaan ku dhahay xayeysiiskaas ay naga soo dhaxgalay laakiinse waa iftitaaxi iyo ducadii oo maaragtay yani lagu furfuranayay waa fahmi kartaan marka inoogama baahna tafsiir badan xayeysiiskaas markuu dhamaado insha Allah biidnillaahi kariim وأن النار حق وأؤمن بالقدر كله خير وشره. أما بعد، إخوتي في الله، محدثكم الدكتور وديع أحمد فتحي. وحا دعادي كدب وكفر فرطي مقعيسى ويلي الدكتور وديع أحمد
سليمان. طبيب أمراض نفسية وعصبية. waxaana weeyaan dhakhtar cilmi nafsiga ku takhasusay waa nin aad u takhasus ma garanaysaa takhasus weyn leh amraadda ma garanaysaa nafsiga waa psychology waa doctor psychology ah oo caan ka ah waddanka Masar waa nin aad u magac weyn في التأمين الصحي بالإسكندرية وكنت سابقا وديع سليمان بطرس وكان waxaa markii hore laygu magacaabi jiray وديع سليمان بطرس والدي أحد المنصرين في الإسكندرية waxaana uu waalidkay ahaa nin ka mida dadka nasaarada u nisba sheegta ee waddanka Masar كان يعمل واعظا في جمعية أصدقاء الكتاب المقدس waxaana uu ka mid ahaa jimciyadda ka shaqaysa Baybalka التي لها فرع في محرم بيه حيث نسكن في الإسكندرية halkaasoo aanu ka howlgeli jirnay Iskandariya. من صغري أراد والدي أن نكون من النشطاء في التنصير waxaa waalidkay igu barbaariyay inaan noqdo dadka fidiya diinta nasaarada دخلني أنا وأخي الكبير بين الشمامسة wuxuu nagu daray markaa shamaamisadu waa kuwan ka dhaxeesa kaniisadda ee intay dharka isu eg soo qaataan sidaas oo kale isu ruxa oo maaragtay halkaa ka heesa shamaamisa la yidhaahdaa yacni waa xer oo kale haddaynu af soomaaliga soo gaabino xerta kaniisadda la yidhaahdaa shamaamisa ee heesa ee maaragtay muusiga loo garaaco في كنيسة العذراء مريم بمحرم بيه بالإسكندرية waana kaniisadda lagu magacaabo kaniisaddii Maryam منذ أن كان عمري 6 سنوات وحilliga laygu xareeyay 6 sanaan ahaa ونشأت في فصول مدارس الأحد أيضا في نفس الكنيسة العذراء waxaanaan isla kaniisadda ka bilaabay tacliintayda مريم بمحرم بيه ونموت داخل الكنيسة وبين جدرانها أتعلم في صفوف الشمامسة وفي مدارس waxaanu markaa wax ku baran jirnay kaniisadda gudaheeda annaga iyo shamaamista kale xerta kale xer kaniisadeedka الأحد حتى صرت أستاذا في الشمامسة وأستاذا في halkaas ayaan wax ku baran jiray ilaa aan ka noqday macallin ma garanaysayay shamaamisada aanu noqday مدارس الأحد وأنا طالب في الثانوية العامة waxaana aan xilligaasi ahaa aan macallinka noqday secondary schoolka kalaaska koobaad وطوال هذه الفترة تعلمت الكثير من أساتذة مدارس الأحد ومن xilligaasi waxaan bartay wax fara badan oo ku saabsan macnaha diintaasi القساوسة ومن أساتذة الشمامسة وقمت بعد ذلك بتدريسه للأطفال kadibna waxaan gaadhay heer aan anigu macallin u noqdo oo aan u dhigo carruurta yacni kabiir buu ka noqday kadibna macallin saasuu macnaha uu ku socday أهم ما كنا نتعلمه وما كنا نعلمه هو الابتعاد عن الإسلام dadka waxaanu bari jirnay sida diinta islaamka looga dheeraado ama looga fogaado وكراهية الإسلام nacaybka islaamka ayaanu dadka bari jirnay والحرص على مداهنة المسلمين iyo inaanu maaragtay macnaha dhibaataynta muslimiinta iyo yasidooda macnaha inaanu maaragtay ka shaqayno والابتعاد عن المصحف وعدم سماع القرآن waxaanu ka shaqayn jirnay inaan la dhegaysan qur'aanka kariimka yani maadaama Masar ay tahay waddan dad badan oo muslimiin ku nool yihiin waxa iska sahlan inuu qofku mar uun dhegaysan karo qur'aanka kariimka yani maadaama ay taasu jirto ha dhegaysanina macnaha yani waa tii ma garanaysaay dadkii qurayshta oo kale ha dhegaysanina walqow fiih lacalakum tughlabuun macnaha iska ilaaliya ha dhegaysanina ma garanaysaaye oo ku qayliya qur'aanka ay lahaayeen nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay subxana wataala qur'aanka inoogu soo raray waaya لأن كل هذا في رأي الكنيسة هو من waxaasoo dhammina waxaa na baray kaniisadda fikraddeedii ka socotay bay ahayd أعمال الشيطان waana min acmaali shaytaan
أي مسيحي يمس المصحف لابد أن يذهب إلى الكاهن ويستغفر ويتطهر. qof alla qofkii taabta qur'aanka kitaabka qur'aanka kariimka ah waa inuu u tago kaahinka kaniisadda oo uu markaasi ka toobad dalbo oo maaragtay ka istighfaar dambe waray dambi dhaaf maanta kitaab qur'aan aba gacantu igaga dhacday subxaan allah ويعده ألا يمس المصحف مرة أخرى لأن waxaana shardigu yahay inaanu mar dambe kitaab qur'aana gacan saarin waayahay bal carabtii oo laga celinayo kitaabka qur'aanka cajaa'ib alcajaa'ib المصحف كما قالوا لنا فيه من السحر ويسحر من يلمسه. waxaana macnaha ujeedada ka dambaysana waxa weeyaan qur'aanka kariimka waxa weeya kitaab sixir mar hadduu kitaab sixir yahayna subxaan allah walciyaadu billah kitaab sixir maayo waa kitaab ilaahay waa iyagu say aaminsanaayeen buu ka sheekaynayaa subxaan allah yani waa dadka carabta ee kiristanka waa waxyaabaha ma garanaysaa ee lagu khalday weeyaan waxan oo la yidhi war kitaabkaas waa sixiraha taabanina wuu idin rogayaa macnaha xaqa qofku markuu arko macnaha qasab waxa ah inuu raaco waayo waxa kale ee uu arko oo dhan buu ka duwaya quraanka kariimka subxaan allah waaya وطبعا كنا نعيش في فترة النمو نتلقن ولا نسأل. ممنوع السؤال، لابد أن تتعلم بدون أن xilligaasi aan maaragtay meeshaasi ku jiray waxa aanu lahayn yani waqtiga inta badan in aanan dadka inaan yani looma ogolayn inaanu dadka su'aal weydiino inaanu su'aal keennana looma ogolayn waa inaad wax barato marka hore yani talaqi keliya waa inaad samayso wax barasho laakiin aadan waxba markaasi adigu aadan su'aal keenin تسأل أو تعترض أو تستفهم عن أي inaad isku daydo inaadan maaragtay ka soo horjeesan waxba oo mucaarad ku noqonin waxyaabaha qaar شيء. ولكن السؤال المحير الذي لم يغب عن عقل أي مسيحي هو كيف يكون لله ابن؟ كيف laakiin su'aasha dhammaantay naga guuxaysay waxay ahayd siduu ilaahay ku yeeshay wiil walciyaadu billah ilaahay maba laha يكون الإله أب وابن وروح قدس أيضا. siduu ku yeeshay ilaahay maxaan ku idhahdaa uu siday u jiraan macnaha saddexdii uu quraanka ilaahay uu ku tilmaamay buu sheegayaa. فكان هذا السؤال هل الله يلد أو هل الله يولد أو هل waa arrintii suuratul ikhlaas ay ma garanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku burinayay buu ka hadlayaa oo ahayd yani ilaahay ma dhalaa isagana ma la dhalay waxaynu ku soo marnay suuratu qul huwa allaahu axad inaanu ilaahay waxna dhalin isagana la dhalin waa yahay marka arrintaasaa naga daadegi laha buu yidhi maadaama ay ilaahay ku tilmaameen wiil الله يكون له تعامله كطفل رضيع وتنظفه وتغسل ma ilaahay baa yeelan karaa hooyo nadiifisa ma garanaysaa ma ilaahay baa yeelan karaa ma garanaysaa hooyo nadiifisa oo nuujisa مكان عورته وما إلى ذلك. كان هذا السؤال يتردد على عقولنا جميعا، لم أكن وحدي طبعا. ma ahayn keligay laakiin cuquushayada oo dhan caqliyadayada oo dhan arrintaas baa ku soo noqnoqon jirtay mar walba oona laka dhaadhicay su'aalna waana loo diiday inaan dadka weydiino. بين الناس لم يكن أحد يصدق أن الإله يمكن أن يكون ثالوث. هذه المعضلة، كيف يكون الثالوث في واحد والواحد في ثالوث؟ waxaa mar walba naga dhaadhici lahayd in saddex ay noqonayaan saddex ilaah ma garanaysa haddana ay mid isku yihiin oo markay yani waa inay waa kuwa saa yidhaahda saana yidhaahdaan midigta iyo bidixda iyo xagga sare marka waa saliibka calaamadda saliibkay ku tilmaamaan taasoo ay uga jeedaan ilaaha xagga midig joogana waa rumaysanahay ruuxulquduskana waa rumaysanahay wiilkana waa rumaysanahay subxaana allah walciyaadu billah waa arrinta qur-aanku ina leeyahay maxaan ku idhahdaa ilaahay way gaaloobeen kuwii lahaa in allaha thalithun thalaatha kuwa saddexda ku tilmaamay ilaahay waa gaaloobeen. لم يكن أحد يصدق أبدا أن الإله لا يستطيع أن يغفر خطية آدم
إلا أن ينزل ويقتل في سبيل هذه الخطية. waxyaabaha aanu rumaysan weyne waxaa ka mid a in nebiyullaahi aadam ilaahay uu awoodi kari waayey, ilaahay wax walba wuu awoodaayey in ma garanaysaa uu dembi dhaafo markaa uu dabadeedna soo macnaha wiilkiisii uu soo deji waa iyagu say sheegayaan buu tilmaamayaa, kadibna dabadeedna wiilkiisii la dilay si uu dadka ugu dembi dhaafo. subxaana allah walciyaadu billah, khuraafaadka laga dhaadhiciyey dadka ayay ka mid tahay waxyaabahaasu. فكانت معضلات تسبب لنا دائما الحيرة في هذه العقيدة الخرافية التي لا تدخل وحويان أرنتاسنا وحويان عقيدة خرافات عقل نقي وآن مرنبا أنا ماركتي أقبلي كرين ما قرني ساي عقلي أنا أقبلي كرين مرنبا أي شيء كسر ستافرين ماشي aad buu dhibaato badan yahay xayeysiiska dadka fiidiyoyada leh baa xayeysiiskan ku lacag qaata marka way dhib badan yihiin hadii jeer marka waynu ku noqonaynaa barnaamijka. وكنا دائما نحاول أن نفهم، فكانت أكثر الكتب الموجودة في الكنيسة لشرح هذه العقائد، كيف يكون الإله ثالوث، كيف dhammaan kutubta taalla kaniisadda oo dhanna waxa ay wada sharaxayaan caqiidadan faasidka ah oo saddexda ilaahay ku tilmaamaya. subxaana allah walciyaadu billah. كيف يكون الإله ابن، كيف يكون للإله أم، كل هذا ما تركز عليه الكتب المسيحية. أيضا وwaxyaabaha ay xaqiijinayaan kutubta masiixiyaddu saddexdaas inuu qofku rumeeyo markaas ayuu kristaan runa yahay walciyaadu billah. كنا نجد الكثير من الكتب التي تهاجم الإسلام وتباع بمبالغ زهيدة لكي نكره الإسلام ونبتعد عنه. si aanu islaamka ma garanaysay karaahiyadiisa ama nacaybkiisa u fidinana kutub ayaanu ma garanaysay fidin jirnay ay waxa soo dhami ay ku jiraan oo aanu dadka nasaarada u qaybin jirnay. هذه الكتب ما كانت إلا خوفا من الإسلام، ما كانت waxa soo kutubi ma ahayn kaliya mooyaane ma ahayn wax kale, waxay ahayd kutub lagu cabsi gelinaya dadka oo la leeyahay iska ilaaliya islaamka iska ilaaliya. إلا خوف من الإسلام، أن نحب الإسلام ويشاء الله waxaana la kaga dheeraynaya inaanu jeclaano islaamka سبحانه وتعالى لبعض الناس أن يهديهم لأنهم يحبون الهدى. فدائما كنت أسأل dadkana waan u ducaynayaa si ilaahay u soo hanuuniyo, waayo hanuunka way jecel yihiin, laakiin waa dad la khalday, waa dad fara badan oo malaayiina oo ma garanaysaa kristaan buu sheegayaa. نفسي كلما رأيت المسيح مصلوبا في الكنيسة إني أريد أن أعبد رب هذا الإنسان الضعيف المهان، وهم الذين markaan arko qof kaniisad ku jooga oo ku cibaadaysanayana anigu waxaan odhan jiray anigu waxaan caabudaa rabbiga insaanka halkaa ku jira, rabbigiisa abuuray baan caabudayaa. waayahay الذين علمونا أن صفته الضعيف المهان، الضعيف المهان، فكنت أنظر إليه على صليبه وأقول إني أريد أن أعبد رب هذا الضعيف المهان، لأني لا أصدق أن إله الكون يصفعه البشر. ولأن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين، وبرغم الجو المشحون بالعبادة داخل الكنيسة والخناق الشديد المفروض على الأطفال المتعلمين من القساوسة والشماسين، وكثرة الترهيب من الإسلام والقرآن، ورفض المناقشة أو الأسئلة في الديانة المسيحية. intaa uu sheegayo dhab waa intii aynu soo sharaxnay, markaa uma baahanin inaynu sii sharaxno. برغم كل هذا الحصار، إلا أن الفطرة النقية تأبى إلا أن تتساءل وترفض التخاريف، وخاصة لو التصقت بإله هذا الكون، ثم يأذن الله بهؤلاء ليكشفوا عن ضلالتهم بأفعالهم.
intaa waxa ugu muhiimsan oo keliya meesha ka muuqda waxa weeye dadka fitrada saxda ah markuu qofku adeegsado waxa weeyaan waxa uu ogaanayaa macnaha xaqa ayuu ogaanayaa markuu fitrada saxda ah qofku adeegsado caqligiisana uu furo wax kasta oo maaragtay khalada oo caqiide ah oo la israaco dadka dhaadhiciya ma gelayaan qofka hadduu adeegsado caqligiisa iyo fitrada saxda ah وأقوالهم. وشاء الله أن أتقابل مع من مهد لي أن أعرف الإسلام والعجب waxaan kadib la kulmay qof maaragtay ii hadiyeeyey inaan islaamka wax ka ogaado العجاب أن أول من لفت نظري إلى الإسلام كان أحد الرهبان في أحد الأديرة waxaa uu ahaa qof ka mida dadka kaniisadda ka shaqeeya ma garanaysaa qofkii islaamka i baray وكان أيضا والدي المنصر من أهم من لفتوا نظري إلى الإسلام بالإضافة إلى بعض الإخوة المسلمين الذين سأذكرهم كنت في أحد الأيام waxaanu noqday macnaha waalidkayga xagga islaamka ayuu noqday qofkaasi maaragtay islaamka ii sheegay wuxuu noqday waalidkayga xagga islaamka أحضر اجتماع في الكنيسة للبطريرك السابق شنودة الثالث وكنت بين الشمامسة وأجلس بجواره ثم كنا نكتب أسئلة في ورقات صغيرة ونرسلها إليه فكتبت إليه ورقة أسأله إذا كان المسلمون يعبدون الله ويصومون لله waxa markaasi maalin macnaha loo fasaxay buu ka hadlayaa su'aalaha oo la yidhi bal su'aalo wixii aad qabtaan soo qorta maalintaa chance fiican bay heleen kadibna su'aal baan qoray buu yidhi su'aashuna waxay ahayd haddii muslimiintu ay yihiin macnaha kuwo macnaha yani caabudaya ilaah xaqa ayay su'aashiisu ku saabsanayd maxaynu macnaha aynu u duraynaa u maagaynaa لله ويصلون لله mar hadday ilaahay u tukanayaan ilaahayna ay aaminsan yihiin فلا شك أنهم على صواب وأن محمد in yani waxaan u qoray inaanu shaki ku jirin in ay yihiin mar hadday ilaahayna u tukanayaan cibaadaysanayaan yani rumaysan yihiin in ay calal xaq ku taagan yihiin ayaan macnaha ugu qoray arrintaas oo sidaas ma aha محمد نبي فلماذا لا نعترف بنبوة محمد؟ su-aashu markaa waa taa maxaanu u ictiraaf weynay nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaanu ugu qoray su'aashaydii ونظل على نصرانيتنا oo aynu weliba u baadiyeyn weynay kiristaannimadeennana maxaynu baadi uga dhigi weynay odhan weynay mar haddii nebiyullaahi maxamed soo baxay calayhi salaatu wasalaam isagaa nugu filan aynu raacno oo markaasi aynu ka hadhno waxyaabahan kiristiyaanatigu ay fidinaysay caqiidada faasidka فلما قرأ السؤال وأنا أعرف الورقة وأجلس بجواره قال من كتب هذه الورقة فلينتظرني بعد الموعد warkii warqadaydii akhrinayay su-aashaydu ku qornayd buu yidhi qofkii warqadan soo qoray ha isugo inta macnaha shirku dhammaanayo wuxuu rabaa inuu barayfad la galo oo uu maaragtay si khaasa uu uga jawaabay dadka dhexdooda ma rabaan inay uga jawaabaan waa habka lagu soo tababaro haddii qofku aad aragtaan inuu xaq ku jiro oo xaq ka hadlayo si gooniya ula hadla si aanu intan kale ma garanaysaa aanu idinka xaq aan iyaguna idinka raacin waayahay وبعد ذلك ذهبت إليه بعد ما انتهى فقال لي أنت تذهب إلى الدير لتتعلم الأدب kadibna wuxuu igu yidhi markii ay arrintii dhammaatay aan la kulmay waxaa tagtaa magaalada ama tuulada la yidhaahdo deer waa tuulo lagu soo tababaro qofkii looga shakiyo inuu islaamka gelayo oo ma garanaysaa nooc min aljeel oo kale ah si aad u barato adaabta si aad u barato maadaama aad ka hadashay islaam oo waxa quraanu ka soo horjeedna buu leeyahay sida uu ku andacoonayo macnaha waa in adabka lagu soo baraa buu ku yidhi markaasi subxaan allah walciyaadu billah
وبالفعل طبعا كنا نقدس البطريرك والكاهن ولا نعصي لهم أمرا كأنهم آلهة. وذهبت إلى الدير وكانت maadaama aanan khilaafi jirin ninka baadariga ah oo aanu markaasi u arkaynaba sidii ma garanaysaa nin yani nin dee ma garanaysaa aad u weyn oo darajo sare gaadhsiisan yani ayaanu maaragtay aan u arkaynay marka waan aqbalay buu yidhi warkiisii waxaanan tegey meeshii deyr la odhan jiray التوصية علي أن يرهقوني في الأعمال حتى يعني أنسى اسمي. waxa uu markaasi iyagiina u sheegay in ay igu mashquuliyaan shaqo ilaa aan xataa gaadho heer aan su'aalba aan keeni waaye aan mar walba yani wax iddaaliya unbaa magaranaysa shaqooyin iddaaliya unbaa mar walba laysiinayay si aan su'aashiiba uga mashquulo oo aan uga jeesto waayahay. وبالفعل أرهقوني في الأعمال، ولكن حدث هناك أنني التقيت براهب، وهذا الراهب كان من أعز أصدقائي في هذا الدير وكان اسمه صموئيل. waxaan la kulmay meeshaasi aan kula kulmay nin isaguna raahiba oo raggii kaniisadda suufiyaashii kaniisadda oo Samuel la odhan jiray. في ذلك اليوم لما وصلت قال لي تعال نذهب إلى أبونا رفائيل لأن شنودة حرمه من الصلاة. وذهب waxaanu markaa u tagnay intaanu labadayadii anigiyo Samuelkii baa israacnay oo waa suufigii uu kaniisadda ugu tegey deer magaalada ku taalla. kadibna markay israaceen bay waxay u tageen mid kale oo raahiba oo mid ka mida dadkii kiristaanka ahaa ee kaniisadda joogay wuxuu ka mamnuucay salaada. waa qisada ku kalifi doonta inuu markaasi dib uga fikiro kiristaanka. إلى الراهب رفائيل فقال له صموئيل صديقي. ninkii Rafaa'iil la odhan jiray baanu u tagnay anigiyo Samuel oo wada soconna. markii aanu u tagnayna قال له لماذا لا تذهب إلى البطريرك شنودة وتسأله لماذا حرمتني من الصلاة؟ waxaanu ku nidhi ninkii maxaad ugu tegi weyday ninkii odayga ahaa ee salaada kaa mamnuucay oo u odhan weyday war maxaad iiga mamnuucday salaadii. macnaha salaad waxa weeyaan baryadii aan ma garanaysaaye aan ilaahay baryi jiray maxaad iiga mamnuucday. yani waa arrin u eg in ay ma garanaysaa qaadicu dariiq u noqonayaan qofka ducadiisii iyo ilaahay inay isgaadhaan baa qaadicu dariiq loo noqonaya. markaasaa laleeyahay adiga waan kaa mamnuucay ducada ma baryi kartid ilaahay baa la leeyahay khalaas waa mamnuuc. yani waa cunaqabatayn xagga ducada ah baa lagu sameeyey meesha. subxaan allah. قال له لقد حرمني من الصلاة لأني لم أذكره في القداس. قال waxa uu iiga mamnuucay keliya waxa weeye dembiga quraan galay waxa weeyaan isaga ayaan ku sheegi waayey yani inuu yahay inuu macnaha qudaas inuu macnaha weli oo kale inuu yahay qof dahiran oo barakaysan inuu yahay oo qura baan ku sheegi waayey ducadaydii oo maysaran oo kale marka magaciisii aan soo hadal qaaday ama aanan sooba hadal qaadin uu halkaa ka waayey ayuu yidhi ninkan waa in laga mamnuucaa macnaha salaada ama ducada. قال له وكيف يحرمك؟ هل هو إلهك؟ هل أنت waxaanu ku nidhi markaa ama uu ku yidhi ninkii odayga ahaa isagu ma ilaah buu kuu yahay sidee buu kaaga mamnuuci karaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala inaad barido siduu kaaga mamnuuci karaa. تصلي إليه؟ فصرخ رفائيل خوفا وقال لا تتكلم كثيرا. kadibna wuxuu yidhi war wax macnaha hadalka ha badanina. macnaha ninkan inay la taliyaan bay ugu tageen kadibna isagii baaba ku sii leh war hadalka ha badanina waa intaasoo dhibkuba nagu sii bataaye. إلا يكون حكم أشد من ذلك. فغضب صموئيل منه وقال لي هيا نخرج من عنده. وخرجنا من عنده. Samuelkiina markaa wuu ku xanaaqay. waa Samuelku waa ninka isa sii raaceene wuu ku xanaaqay isagana oo markaasuu dabadeedna war waxaan naga kaxee. إلى الصحراء وكنا بالليل. فسألني الراهب صموئيل قال لي هل يقدر الشيخ الأزهر أن يحرم مسلما من الصلاة؟ قلت wataa qodobka ugu muhiimsani waa kaa yani
samuel habeenkii markii aanu meeshii ka soo tagnay ayaan meel kale u hoyanay meeshii kale aan u hoyanay ayaa markaa su'aal buu i weydiiyey buu yidhi markii aanu jiifsanay waa dadku waa kuwa sheekaysta markaasuu wuxuu igu yidhi suurtagal miyay tahay in sheekh al ashar shiikha ma garanaysaa jaamacadda ashar haystaa uu dadka muslimiinta ah ka mamnuuco salaada iyo inay ilaahay baryaan suurtagal miyaa له لا أدري قال لي إن شيخ الأزهر لو حرم مسلما من الصلاة لقتلوه لأنه كافر haddii markaa isaga anigu ma aqaan baan ku idhi buu yidhi sheekh al ashar inuu ka yani dadka caqligooda meesha la gaadhsiiyey bay kuu muujinaysaa sheekh al ashar ama shiikhu doonaba ha noqdo in uu qofka salaadii ama iyo baryadii ilaahay uu baryayey uu macnaha uu ka mamnuuco shiikh waa waxaan suurtagal ahayn oo aan caqliga geli karin laakiin isagu wuxuu ku leeyahay anigu waxaan idhi laa adri ma garanayo inuu sheekh asarku ka mamnuuci karo muslimiinta masar degan inuu ka mamnuuci karo salaada iyo baryada ilaahay anigu garan maayo isagaa laakiin iga jawaabay wuxuu yidhi hadduu sidaa sameeyo laqataluuhu way dili lahaayeen ma garanaysaa wayna kufrisiin lahaayeenoo waa gaal baabay odhan lahayn ninkan salaadiis hortaagay waa yahay iyo ducadii قلت له كيف ذلك قال لي لأنه يجعل نفسه إلها waxaan weydiiyey markaas siday ku dhici kartaa inay u dilaan ama u kufrisiiyaan markaasuu yidhi sababtoo ah isaga ayaa yani hadduu sidaa falo isaga ayaa naftiisii ilaah ka dhigay ma arkaysaa oo dee ilaahay baa waxna xarima waxna ma garanaysayay ogolaada oo xalaal ka dhiga waa yahay قال لي هل تحفظ شيئا من القرآن قلت له لا أحفظ شيء ولماذا أحفظه قال wuxuu weydiiyey markaa ninkii samuel qur'aanka miyaad wax ka xifdisay markaasaan ku yidhi oo maxaan u xifdinayaa igu wataa لي أنا سأسمعك القرآن ونحن وحدنا في الصحراء وأخذ يرتل سورة الرحمن annaga oo joogna markaa saxraha ayuu markaas yidhi anigaa ku maqashiinaya bal dhegayso qur'aanku wuxuu yahay markaa dhegayso الرحمن بقراءة جميلة جدا wuxuuna akhriyey suuratu raxmaan qiraa'o aad u wanaagsan buu ku akhriyey ثم توقف فجأة فسألته لماذا توقفت وقد أخذني kadibna wuu joojiyey suuratu raxmaan oo uu akhrinayey wax yaab kale waxa weeye weliba dushu ka akhrinayey ninkaas baadariga ah ee suufiga ee kiniisadda jooga ayaa suuratu raxmaan intuu xifdiyey ka akhrinayey dusha markaas ayaan ku idhi war maxaad u joojisay markuu joojiyey markaasuu iigu jawaabay maxay قراءته وترتيله الجميل قال لي qiraa'adiisuna way fiicnayd siduu u kala dhigdhigayay qur'aankana aad bay u macaanayd waaban jeclaystay waayahay توقفت لأني نسيت كلمة قلت له waxaan ku yidhi markaasi maxaad u joojisay wuxuu igu yidhi waxaan ilaaway kelmad qur'aanka ka mid a waa baadari qur'aan akhrinaya oo ilaaway hal kelmad oo u joojiyey suuraddii dhammayd أكمل ما بعدها قال ما لا ينفع القرآن waxa uu yidhi markaasi waxaan ku yidhi dhammaystir kadibna wuxuu igu yidhi macquul ma aha waayo qur'aanka kelmad kelmad lagama boodi karo macnaha oo macnaha yani ma anfacayso ليس مثل كتاب أنا نقول كلمة ونطق mana aha sida kitaabkeenna oo kale oo kelmadna aanu dhaafi karno kelmadna aanu ma garanaysaa akhriyi karno ma aha كلمة القرآن يجب أن يقرأ كلمة كلمة وحرف حرف أنت لا تفهم شيء عن القرآن wuxuuna igu yidhi adigu ma fahmaysid qur'aanka gebi ahaan waa la wada akhriyaa ma arkaysaa waa cajaa'ib alcajaa'ib waa kaniisaddii yani baadarigii kaniisadda oo qur'aankii yani ixtiraamaya haddana waa cajiib weeye قلت له أنا لا أفهم شيء عن القرآن من أين أتيت بهذا فأخرج من جيبه راديو ترانزستور صغير كده قال لي هذا الراديو لا يتحرك عن إذاعة القرآن الكريم منه حفظت القرآن waxa uu igu yidhi markaa raadiyow yar buu i tusay uu yidhi raadiyowgaa yar baan ka dhegaystay qur'aankan ka xifdiyey sida loo akhriyo
راديو جيبو كدقيستي معناه وكاخري. قلت له كيف تحفظ القرآن؟ قال لي أنت باين عليك أنت كمان جاسوس. markaas ninkii baan ku kacay buu yidhi oo aan ku yidhi maxaan ku idhaa war ma waxaa tahay basaas yani haddaanu kaniisadda nahayna basaasaya waa maxay qur-aankan aad akhriyaysaa روح قول لشنودة إن صموئيل بيحفظ القرآن. قلت له لا waxaan ku yidhi markaa waxaan u tegayaa ninkii odayga ahaa oo aan odhanayaa ninkaas Samuel qur-aankuu xifdiyey لن أتكلم في هذا الموضوع مع أحد. markaa wuxuu igu yidhi ha kala hadlin cidna arrintaa inaan qur-aan akhriyey. وبالفعل لم أتكلم في هذا الموضوع مع أحد، ولكن يعني تعجبت لأن هذا الراهب يحفظ القرآن ويحترم بهذا المقدار. فقلت waxaan aad ula yaabay buu yidhi in raahibkaasi ama suufigaasi uu qur-aanka xifdiyey uu weliba ixtiraamayo qur-aanka kariimka ah. قلت لا شك أن الراهب عنده حق، وأنني كنت عندي حق حين سألت البطريرك عن نبوة محمد. kadib waan fekeray waxaanan idhi warniya waxaa laga yaabaa ninkanu inuu ku saxsan yahay fikraddan ah inuu qur'aanka xifdiyey. aniga laftayduna waan isu bogay oo wuxuu yidhi waan ku saxsanahay in aan ma garanaysaa su'aashii noocaas ahayd aan weydiiyo. waa su'aashii ku saabsanayd ma garanaysaa nebi maxamedna maxaynu u ictiraafi weynay, nasraaniyaddana maxaynu uga tegi weynay. oo markaa baadarigu lahaa gooni iila kulan oo ma garanaysaa uu gooni iila hadlayey kadibna uu ii diray meesha la yidhaahdo ma garanaysaa deer meesha la yidhaahdo oo meeshii lagu ciqaabay ee lagu dhibaateeyey uu ka hadlayey oo shaqada lagu mashquuliyey. صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يدعو إلا إلى الله، وأتباعه لا يعبدون إلا الله ولا يصومون إلا الله. waxaa markaa aan idhi war xaq baaba laga yaabaa inaan ku taagnaa ninkana xaq baa laga yaabaa inuu ku taagay inuu xifdiyo qur-aanka kariimka. nebiyullaahi maxamedna ma caabudi jirin cid aan allah ahayn, cid kalena ma garanaysaa muu caabudi jirin, dadka atbaacdiisuna cid kale ma caabudaan. وكان الشخص الثاني الذي لفت نظري للقرآن هو والدي، وأنا أظنه مات على الإسلام عليه رحمة الله، فكان يعلمنا الدين وكان يعلمنا الكتاب المقدس وكان يشرح لنا، وفوجئت به ذات يوم. qofka labaad ee markaasi islaamka wax ma garanaysaay aan ka ogaaday wuxuu ahaa isagana waalidkay. kaasina waxaana ma garanaysaa aaminsanahay inuu ku dhintay xaq inuu ku dhintay, yani waa waalidkii isaga aabbihii isaga dhalay weeyaan. waaya inuu islaamka macnaha uu muslin ahaa laakiin uu qarsan jiray aanu sheegan jirin. waxaa dhici karta sababaad jira had iyo jeer dadkan aanay u sheegan islaamka xataa hadday muslimaan qaarkood. waxa weeyaan hoostaasuu ka wataa wixiisa, waayo kaniisaddaa lacagi uga socotaa, kaniisaddaas waxaasuu iska guranayaa. markaa waxa weeye dadka had iyo jeer badanaaba iibsada diintooda. xataa bulshada soomaaligana qaar bay ku dhacdaa arrintaasi oo maaragtay arrintan oo kale ay ku dhacdaa. indhahaygana anugu waan saaray nin oday ahoo ilaa 60 jira oo haddaad youtube-ka ku qortaan oday 60 jira oo kristaana waad arki doontaan oo odhanaya ma garanaysaa waar xaggan baa fiican anaa gacanta usaa leeyahay oo maaragtay macnaha xaggan baa ma garanaysaa xaggan baa macbuu leeyahay macnaha xaggan baa lacag laga helaa weeyaan. waaya waa dadka lacagtooda ku iibsaday ma garanaysaa diinta آخرتودي بقى الدنيا كويس سبحان الله. يقول إن الكنيسة لا تتبع الإنجيل في أي شيء على الإطلاق، بل تختلف عن الإنجيل اختلافا كبيرا. فسألته كيف ذلك؟ وحنا ويقول وليبا والد كيف يري إنجيلك كنيسة مع اعتراف سنة سيدي صحدا هيدا اللي قرب إنه إنجيلك وهذا وما أقوله سي يجا تشيب كوده ما arkaysaa ayay maaragtay injiilka ay u adeegsadaan, yani danahooda wax u adeegaya bay u adeegsadaan injiilka. waaya ذلك قال إن الإنجيل ينهى عن صنع الصور والتماثيل وليس. qodobka uu markaa daliil uga dhiganayana waa qodobkan. injiilku
waa uu diidaa sawirada kaniisadana waxa buuxa waa sawiro saliibkii oo sawiraa yaalla maryan oo la sawiray baa taalla nabiyullaahi ciise oo la sawiray baa yaalla injiilkuna wuu diidaa sawirada buu yidhi waa yacni waa wax ku tusaya siduu injiilku uu xaq u yahay oo maaragtay waa sidii qur-aanka lagu sheegay waayahay laakiinse waxaana imika haystaan injiil maaha saxa injiil saxa maaha waa waxay walaaqeen weeyaan فيه أي شيء عن هذا القداس وليس فيه أي شيء عن هذه الأصوام وهذه الصلوات وكانت مفاجأة لأني طبعا كنت صغير وكنت أتعلم منه وبالفعل لما سألت وجدت أن والدي على حق فلما توفي والدي وجدت في مكتبته Det er vigtigt for os alle sammen, at vi får en god nats søvn. Og derfor får du prissikkerhed, når du handler hos Ilva. Det vil sige, at finder du op til 30 dage efter dit køb din seng... waxaasaa had iyo jeer soo gelaya shayaadiintaas oo lagu salliday qolyaha youtube-ka maaragtay waxaan waa shaqo ay ku shaqaystaan marka raalli ahaada insha allah biidnillaahi kariim sawiradaas raalli kama nihin inay soo galaan laakiinse waa ku qasbannahay maadaama youtube aynu adeegsanayna inagu xagga khayrkan insha allah u adeegsanaynaa waa yahay waa ka boodaynaa markaa halkaas جدي والد والدي وفي هذا الإنجيل توجد مقدمة تقول إنه قد تم إحداث تغييرات كثيرة في هذه الطبعة wuxuu ka sheekaynayaa markaa kutubtii uu ka dhaxlay aabihiis uu ka dhaxlay oo uu leeyahay macnaha injiilkii saxda ahaa ayaan markaasi kitaab baan ka dhex helay وجدت طبعة أخرى ترجع إلى سنة 83 فيها مقدمة أخرى تقول إن هذه الطبعة تم إحداث تغييرات كبيرة فيها بالإضافة وبالحذف يعني isbedeladii lagu sameeyay buu ka hadlayaa hadda يعني kitaabka injiilka wixii lagu sameeyay isbedeladii oo midaan helay يعني oo taariikhdii uu sheegayay ahayd يعني ayaa jirtay oo tilmaamaysa in la bedbedelay oo wax badan la bedelay التغيير وبكل الطرق ولما سألت الكهنة إذا بهم يسخرون مني ويقولون لي هذا للتوضيح وهذا للتعديل وهذا قلت لهم كنت أظن غير ذلك أنا تعلمت في markii aan su'aalaha weydiiyeyna waxa la igu waa degdegaysaa iyo ma garanaysaa waxyaabo caynkaas baa la igu jawaabay marka dhibaatadu waa taas weeyaan waynu sii wadaynaa insha allah biidnillaahi kariim qorax baa ay qabatay waan gartay waynu sii eegaynaa insha allah kadibna waan iska soo gabagabaynaynaa في الكنيسة أن الإنجيل لا يتغير فيه حرف قالوا لي لا 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 تقل هذا فلما فتحت الإنجيل الخاص بوالدي وجدت أن والدي كتب في أول صفحة أن الصفحة الأولى من إنجيل متى مليئة بالأخطاء وأخذ wuxuu yidhi isla markii aan ma garanaysaa aan helay qaybtaasi ku saabsan buuggaasi ku saabsan injiilka in uu khaladaad badani ay ka buuxaan oo markaa waalidkayna uu iisii sheegay inay khaladaad uu ka buuxaan waaya يصوب والدي الأخطاء الموجودة weliba waa qaybta Matthew la yiraahdo buu imka inoo carabaaba isagu laakiin qayb walba uu ku jira khaladaadku أول صفحة إنجيل متى من أول يوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سبي بابل ويكنيا ولد زروبابل وزروبابل ولد شلتئيل قال والدنا كل هذا خطأ وتاريخها wuxuu ka sheekeynaya markaasi kitaabkooda ayuu ka sheekeynaya uu leeyahay waxa soo dhami waa wada khalad miidhan ku qorani ayuu leeyahay waxyaabahaas oo dhan ayuu ka sheekeeyay Matthew waa 4 kitaab ma garanaysaa 4 kitaab baa la yiraahdaa weeyaan Bible-ku marka 4tii kitaab mid ka mid ah ayuu imika inoo tilmaamay isagu laakiin kulligood ba khaladaadku ka buuxaan waay iyo waxyaabaha tanaaqudka iska horimaadka aad bay uga buuxaan لأن يوشيا لم يحضر سبي بابل ويكنيا لم يحضر سبي بابل ويوشيا ليس هو ولد يكنيا
فذهبت إلى القساوسة أسأل مرة أخرى، قالوا أنت تجزع من أمور سهلة، إنه يكتب برأيه. قلت لهم كيف يكتب برأيه؟ هذه markii aan weydiiyey nimankii qasaawisada ahaa ama suufiyaashii kaniisadana aan ku yidhi arrintan ka warrama wax simbale baadna weydiinaysaa bay igu yidhaahdeen buu yidhi. kadibna waxay igu yidhaahdeen buu igu jawaabeen yani caqligiisuu ka qoray ama fikirkiisuu ka qoray kitaabka. waaya waa kitaab diini ah lagu sheegayo inuu diin yahay oo laga qorayo caqliga. subxaan allah. يكتب وحي الروح القدس؟ قالوا لا، إن الروح القدس يوحي إليه بالفكرة وهو عليه أن يرتب هذه الأفكار كما يشاء. waxaan ku yidhi buu yidhi miyaanu ruuxalqudusku ruuxalquduska waxay u yaqaaneen malakul jibriil oo kale. malakul jibriil miyaanu ma garanaysaaye aanu u soo waxyoonin. kadibna wuxuu leeyahay waxay igu yidhaahdeen buu yidhi wixii uu waxyooday isagu ayay yidhaahdeen ayuu maaragtay siduu doono uu isagu ka yeelay. wixii loo soo waxyooday ayuu wuxuu ku yidhi ruuxalqudusku ama ruuxalquduska ha u yaqaanaan ilaaha weyn ama ha u yaqaanaan ninka la yidhaahdo malagga la yidhahdo malakul jibriil ha u yaqaaniine wixii loo sheegay ayuu markaasi isagu caqligiisa siduu u fahmay ayuu markaasi sii qoray. sidaas ayuu ina leeyahay. قلت لهم انتوا ما قلتوش كده في الكنيسه، انتوا قلتوا لنا ده الانجيل ده نزل بالوحي وبالحرف وبالكلمه. قالوا لي لا لا الكلام ده نقوله للعوام، انت راجل شماس كبير عيب كده. اهتزت صوره الانجيل في عقيدتي واصبحت. kadibna waxaa gilgilantay buu yidhi rumayntii aan rumaysnaa maxaan ku idhaahdaa kitaabkaasi iyo diintaasiba way gilgilantay buu yidhi. أشك فيه وابتدأت أقرأه بفحص. kadibna waxaan bilaabay inaan dib u baaritaan ugu sii sameeyo kitaabkaasi. وبتمحيص. وهكذا يسخر الله من أهل الكتاب من ينطق بالحق ويعرفه، كما قال الله عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وسخر الله له من الكهنة والقساوسة من جعله يزداد بعدا وتشككا في هذا الضلال الذي كان قد بدأ يعلمه للناس. wuxuu faallaynayaa sida markaa nimankan qasaawisada ahi waa faallo qofkii maaragtay duubay videoga ayaa faalladan kale leh waa tacliiq gooniya. marka yani wixii unbuu soo faallaynayaa wixii ra'yigiisana wuu ku darsanaya. waaya صفته شماس برغم صغر سنه، ولم تردعه الرحلة التأديبية التي أرسلوه فيها للدير يعني wuxuu ka hadlayaa markii ay u direen rixil ama safarkii edbinta ee loogu diray magaalada Dayr. yani wax kale xaq baabu ka soo faa'iideyba oo maartay waa ka quraankii dhageystay, waa ka su'aalaha keenay, waa ka yani xaq baabu ka helayba safarka laftiisii. markaysaa والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني marka ay dadku xagga ilaahay u jihaad yar u sameeyaan ijtihaad yar ilaahay baa ku hanuuninaya jidkiisa. waaya عدم السؤال، ولكن هذه الرحلة جعلته يتشبث أكثر بالبحث عن الحقيقة. safarkaas ayuuba ahaa safarkii raadinta xaqa. وجدت أن والدي أيضا كتب أنه توجد نبوءات عن محمد صلى الله عليه وسلم في داخل الكتاب المقدس، وأشار بالأخص إلى الإصحاح 9 من كتاب دانيال. وذهبت إلى أب اعترافي. marka wuxuu ka warramayaa in ma garanaysaa kitaab baaritaan fara badan uu sameeyey wixiina bugaagtii uu uga dhintay aabihii iyo baaritaanadii uu samaystay oo dhami in ay macnaha ishaara siiyeen xagga yani nabiyullaahi maxamed ah calayhi salaatu wassalaam. ilaahayna waa kii quraankiisa ku sheegay yani waxay u yaqaaniin yani waxay macnaha u garanayaan nebiga calayhi salaatu wassalaam macnaha siday u yaqaaniin abnaa'dooda dadka ehlu kitaabka ahi. القمص متياس رفائيل في كنيسة جرجس في غيط العنب
وسألت عن هذه بالذات قال نعم والدك أصاب. قلت له أنتم قلتم لنا أن محمد لم يأتي ذكره في الكتب أبدا. baaritaanadii kadib waxaa ii timid baa yidhi macnaha su'aal baan la yimid waxaad noo sheegteen inaan nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu sheegin kutubta ilaahay subxaanahu wa tacaala innaga waynooga warramay qur-aankaynu ku ognahay laakiinse iyagu way qariyeen arrintaasi way qariyeen kadibna maxay ugu jawaabeen قال لي نقول هذا في الكنيسة ولكن هذه بالذات فيها ذكر محمد ولكن بالسوء. قلت له ليس كذلك. waxay markaa igu yidhaahdeen nebiyullaahi maxamed waa lagu sheegay kutubta muqaddaska ah laakiin si xun baa loogu sheegay waayahay macnaha iska jira ninkaa ha raacina oo kale ayaa looga dhigay mana aha xaqiiqdu caynkaa kadibna waxaan ku yidhi arrintu sidaa maaha yacni qofka waxay rabaan inay khaldaan isagoo indhihiisu shan yihiin فإن يوجد غيرها أيضا في أشعياء عن النبي الآتي من نسل إسماعيل وأن ذبيحته تكون مقبولة. قال نعم. kadibna waxaan maaragtay soo xusay cutub ku yaala baybalka oo markaasi yacni sheegaya in uu nebiyullaahi maxamed noqon doono mid ka soo jeeda asalkiisu nebiyullaahi ismaaciil. ذبيحته تكون مقبولة حين يدخل في المسيحية. وجدت إنه يعني بيحاول waxa uu gowracana nebigaasi calayhi salaatu wasalaam iyo dadka raacsanibana wixii ay inoo gowracaan aynu cuni karno haddaynu nahay dadka kiristaanka ah macnaha yacni qoraal caynkaasoo kale ah ayuu markaasi inoo soo tilmaamay يشوه الصورة أمامي فضعفت ثقتي في هذا الكتاب ثم فوجئت بأن الله يفتح بصيرتي لأرى اختلافات وتناقضات كثيرة. arrintaasi waxa ay hoos u sii dhigtay kalsoonidii aan ku qabay nimankaasi odayaasha ah waxaana ay ii furtay basiirada in aan si fiican wax u sii raadiyo oo aan markaasi si wacan u sii raadiyo yacni xaqa aan u sii raadiyo khaladaadkoodana aan si wacan u sii baarbaaro khaladaadka ay kutubta ka buuxiyeenna aan si wacan u sii baarbaaro وانهار هذا الكتاب من أمامي. waxaa soo socdaa xayeysiiskaa yar baynu ka boodaynaa biidnillaahi alkariim wuu dhammaanayaa wax yar sabra إلى الصواب فهداني الله إلى أنني لابد أن أقرأ القرآن. waxa ilaahay subxaana wa tacaala waxay arrintu socotaba uu ilaahay subxaana wa tacaala igu hadeeyey inaan anigu akhriyo qur'aanka kariimka ah aakhirkii macnaha markan iyaga khaladaadkoodii oo dhan soo wada akhriyey ayaan kadibna u soo jeestay qur'aanka. كان لي أصدقاء مسلمين صديقي في السكن الذي كان يسكن أسفل عيادتي في منطقة بشر وهو أحمد دمرداش وكان دائما يناقشني في المسيحية. waxaa jiray nin la yidhaahdo axmed demardaash oo maaragtay aanu saaxiib ahayn oo muslin ahaa oo markaa wixii ma garanaysaa isagana aanu ka wada hadli jirnay dood ku saabsan masiixiyada waa yahay. ويسألني عن العبادات المسيحية وعن wuxuuna i weydiin jiray wax ku saabsan cibaadada masiixiyada العقائد المسيحية وكنت لا أجد جوابا حقيقيا يعني. ومانaan heli jirin wax jawaaba runtii. أحيانا كنت أخدع نفسي وأحيانا كنت أقول له سأجيبك. mararka qaarkoodna waxbaan khiyaamayn jiray oo khiyaamo iyo waxbaan sheegi jiray yani waa yani naftaydaan khiyaamayn jiray buu leeyahay macnaha yani waa yani wax beena baan sheegi jiray oo ma garanaysa aan jirin. ولكن لم أكن أجد عندي من داخلي جواب مقنع. وكان لي زميلي أيضا في العمل الدكتور محمد الشطبي في مستشفى كرموز مستشفى الصدر. nin kale oo dhakhtar oo isagana aanu saaxiib nahay ayaa isaguna jiray في كوم الشقافة وكان هذا له اتجاه آخر إذ كان دائما يتكلم معنا في الصباح عن الإسلام وعن سيدنا محمد. wuxuu ninkaasi dhakhtarka ahay isaguna nooga sheekayn jiray islaamka iyo nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam inta badan waa yacni daaci buu ahaa dhakhtarna wuu ahaa yani arrintaas waxay kutusaysaa balliquu canii walow aaya meeshaad doontaba joogo ama dhakhtar ahaw ama weriye ahaw ama askari ahaw
إن إسلام كواجب كويها إن تفيدنتي سكا قيب قادته على الأقل أقو يران حتى ولو آية بالسو قرسي هل آياتنا هالنقطة ويا محمد قبل أن نبدأ العمل صلى الله عليه وسلم، فكان مثلا يقول آية من القرآن الكريم ويشرح لنا الإعجاز فيها، أو يقول حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كدبنا وحا ونو شيغي جري آيات قرآن أما حديث نبيغا عليه الصلاة والسلام marka aanu camalka aanu bilaabayno haddii ilaahayd ma ayuu noo sheegi jiray dhakhtarkaasi وسلم ويقول أن هذا الحديث تحقق في كذا وكذا، وبالفعل كان يشدني أسلوب القرآن الكريم وأسلوب macnaha wuxuu igu magaranaysaayay igu waanin jiray magaranaysaayay qur'aanka kariimka ah iyo magaranaysaa islaamka محمد صلى الله عليه وسلم. فكنت أقول لصديقي المسيحي، كان زميلي اسمه الدكتور أسعد لويس، وهو أيضا كان يقول لي إن أسلوب القرآن يختلف تماما عن أسلوب كتبنا، فإنه أسلوب راقي جدا. وكنت nin kale oo isagana kaniisadda ka shaqayn jiray oo aanu arrinta ka wada sheekaysanay ayaa isagoo laftiisu macnaha ii sheegay in usluubka qur'aanku u qoran yahay uu ka duwan yahay usluubka ama habka kutubteena haddaynu nahay ma garanaysaa qolada nasaarada u nisbe sheegata uu markaasi uu ka duwan yahay waay كنت أقول لصديقي أسعد كيف تقول هذا؟ فكان يقول لي انظر لكلام محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، تجده كلاما موجزا قليل الكلمات كثير المعاني. wuxuu igu yidhi oo kale xataa xadiiska bal u fiirso buu igu yidhi xadiiska qura waxaad helaysaa xadiisku inuu yahay ma garanaysaa hadal kooban oo macno ballaaran haddana xambaarsan axaadiiska oo kale inama alacmaalu binniyaad oo kale kaasoo kale fiiri ومع ذلك هو لم يسلم ورفض أن يسلم بعد ذلك. weliba ninka saa ilahaa haddana weliba isagu muslim muu ahayn wuuba diiday xataa inuu islaamo بعد ما أسلمت فابتدأت أفكر فيما أسمعه من دكتور محمد الشاطبي ومن أستاذ أحمد دمرداش عن الإسلام، وابتديت أحب أن أسمع عن الإسلام. هكذا kadibna waxaan jeclaystay in aan islaamka wax badan ka maqlo oo aan wax badan ka dhegaysto waaya القرآن الكريم يغير النفوس الضالة. qur-aanku waxa uu bedelayaa ayuu tacliiqa uu ku daray haddaynu ku darno waxa weeye nufuusta ayuu bedelayaa nafaha فينقيها ويصفيها ويعيدها للفطرة بمجرد قراءته. waxa uu markaasi iimaan buu u kordhinayaa qofka waanuu nadiifinayaa dahirayaa فلم يلبث الدكتور وديع أن فتح المصحف فقرأه كاملا في يومين. waxa uu bilaabay markaasi inuu qur'aanka kariimka akhriyo yowmayn laba maalmood oo keliya gebi ahaan 30 jusba laba maalmood oo qura ayuu ku akhriyey subxaan allah bal siduu xaq u raadinaya fiiriya يبحث عن الضلالات التي كانوا يزرعونها فيه في الكنيسة. waxa uu markaa ka dhex helay dhammaan qur'aanka kariimka wixii ay ma garanaysaa baadida ahaa ee ay ma garanaysaa islaamka ku duri jireen oo ma garanaysaa lagaga jawaabay oo ma garanaysaa loogu cadeeyay way عن هذا القرآن فلم يجد إلا كل خير وكل islaamkana kamuu helin waxaan ahayn iyo qur'aanka khayr waxaan khayr ahayn kamuu helin فضيلة، فبدأ يفكر جديا في هذا الدين العظيم. kadibna wuxuu bilaabay inuu aad u fekero oo diinta tan la yaab kale uu ka fekero ولما شاء الله وهداني إلى ضرورة قراءة القرآن لأحكم عليه بعد أن تعلمت في الكنيسة أنه كتاب سيء جدا، فاشتريت المصحف وذهبت لأقرأ القرآن. وكانت المفاجأة أنني كيف سأفتح المصحف، لأنني كنت أعلم من أخي أحمد دمرداش أنه لا يمسه إلا المطهرون. markii aan soo iibsaday kitaabka qur'aanka ah ayaan markaasi xasuustay hadal uu igu yidhi saaxiibkay damardaash oo ma garanaysaa waa dhakhtar kale oo markaasi ay saaxiib ahaayeen oo igu yidhi qur'aanka ma taaban karo qof aan daahir ahayn ma arkaysaa فكيف يكون المطهرون؟ أخذت أبحث في عقيدة المسيحية عن معنى الطهارة، لم أجد أي شيء عن الطهارة. kadibna waxaan ugu laabtay si aan dahaarada wax uga ogaado
ma garanaysaa kutubtii qoraalladii kaniisadda laakiin wax kamaan helin dahaaro ku saabsan inuu qofku daahir yahay. وأخذت أفكر كيف ألمس المصحف أول مرة وأنا لا أعرف الطهارة. kadibna waxaan isweydiiyey su'aasha ah sidaan u taaban karaa qur'aanka haddii aanan aqoonin dahaarada. وشاء الله وهداني أن أغتسل فقمت واغتسلت وفتحت المصحف وقرأته كله في يومين. kadibna ilaahay subxaanahu watacaala qof qura muu weydiin dahaarada muslim intuu u tegey muu weydiinin qof dahaaradu maxay tahay xataa muu odhan. ilaahay subxaanahu watacaala unbaa fikradda isoo geliyey ah war qubayso oo maydho markaad maydhata kadibna qur'aanka akhri. waaya waa cajiib weeyaan. أبحث فيه عن أي خطأ من الذين تعلمتهم في الكنيسة. قالوا في الكنيسة إن المصحف فيه كلام جنسي. قالوا wax alla wixii khaladaad ay sheegi jireen oo dhan ayaan ku ogaaday qur'aanka. في الكنيسة إن المصحف كتبه محمد ليأخذ لنفسه مركزا عاليا وليأخذ لنفسه حقوقا. waxa markaa ay nabari jireen oo ka mid ahaa oo aan ogaaday inay khalad tahay in nabiyullaahi maxamed uu qoray qur'aanka oo uu isagu markaasi yahay udubdhexaadka qur'aanka. قالوا إن المصحف فيه كلام متضارب. قالوا إن المصحف waxayna odhan jireen qur'aanku waa hadal iska hor iyo dib imanaya. فيه كلام من التوراة والإنجيل وأن waxaana ku jira hadal tawraad iyo injiil hadalladaas baa ku jira. محمد صلى الله عليه وسلم نقله من كتابهم. أخذت أبحث في هذا الكتاب عن أي شيء من هذا لم أجد على الإطلاق. waxyaabaha inagu odhan jiroon oo dhan kamaan arkin oo qur'aanka ku qoran inuu nebi maxamed udubdhexaadka qur'aanka yahay ma arkin oo markaasi uu isagu maaragtay leeyahay iga dhigta aniga igu caabuda waxaasoo dhan ma arkin. بل وجدته كتابا يحث على الفضائل ويحرم الخبائث. waxaan markaa ogaaday inuu qur'aanku yahay kitaab fadliga nasare u qaadaya maxaan ku idhaahdaa xumaantana diidaya wixii xumaana diidaya. الكتاب يقودك إلى الجنة ويبعدك عن النار. kitaab kuu hogaaminaya jannada kaana dheeraynaya naarta. كتاب يحببك في طاعة الله ويبعدك عن معصية الله. kitaab kuu hogaaminaya daacada ilaahay kaana leexinaya macsida ilaahay. قلت هذا هو الكتاب الذي فعلا يكون كتاب الله. waxaan markaa anigu idhi xukun baan saaray ah alla ilaah kan waa kitaabkii ilaahay waa qur'aanka kariimka ahi. لم أجد فيه أي تناقض أو تضارب أو أي manaan ka helin wax iska hor imaansho ah oo uu qur'aanku iska hor imanayo. كلام مختلف. المهم صدقت بالإسلام. kadibna waxa aan rumeeyey islaamka. وفي تلك الأيام وأنا في مرحلة متذبذبة بين الإسلام والمسيحية. xilligaasi oo aan ahaa qof yacni hasha labada geel jecel xaggana waa u iilanayay xaggana waan u iilanayay markii hore. شاء الله وأنا نائم أن أرى فجوة في الجدار انفتحت فيها نور كبير جدا وعظيم جدا. kadibna waan seexday waxaanan ku riyooday iyada oo daaqadda nuur iiga soo galay. ثم خرج من هذا النور رجل يرتدي جلباب ويضع على رأسه عمامة من نفس قماش الجلباب وله لحية كثة وشعره ينزل خلف أذنيه وعينيه واسعتين. kadibna waxaa ka soo galay nin leh ma garanaysaa dhar cadcad xidhan oo cimaamadii madaxa u saaran tahay oo garh weyn leh oo timihiisu ay ka degeen ma garanaysaa dhegaha ka degeen macnaha timo dhaadheer leh ayaa nuurkii iiga soo dhex muuqday. waa yahay waan sii wadaynaa. وتقدم إلي ثم أشار إلى المصحف الذي بجانبي ومددت يدي ظننت أنه يسلم علي فلم يسلم علي وسحب يده وتراجع واختفى في النور. kadibna wuxuu ii tilmaamay kitaabkii qur'aanka ahaa oo uu macnaa ii tilmaamay waxaan u maleeyay inuu ii salaamayo laakiin imuu salaamaynin
kitaabka qur'aanka ah ayuu ii tilmaamayey waa tilmaam ma garanaysaa riyo ku arkay riyo saalixa weeyaan ru'yo saalixa فوقع في قلبي أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم kadibna waxaa qalbigayga soo galay ninkanu inuu yahay nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam وأنه يقول لي أن هذا القرآن هو حق فعلا kadibna waxaa qalbigayga soo galay inuu leeyahay nebiyullaahi muxamed kitaabkan baa xaq ah وقررت أن أسلم بإذن الله وبدأت kadibna waxa aan gaadhay go'aan ah inaan muslimo أول خطواتي الإسلام فسألت عن إجراءات الإسلام ثم اتجهت إلى مديرية الأمن في الإسكندرية إلى قسم الشؤون الدينية وهناك تقابلت معهم وكتبت وعملوا لي محضر أنني أسلمت برغبتي وبإرادتي وأن لم يدفع لي أحد نقود ولم kadibna waxaan u imid ma garanaysaa dadkii muslimiinta ahaa ballan baan la qabsaday kadibna waxa aan yani waxay igu yidhahdeen maxaad u muslimaysaa ma cid baa ku qasbaysa ma garanaysaa ma lacag baad lagugu siinayaa ma waxbaad yani maxaa kugu kalifay inaad muslinto kadibna waxaan ku yidhi maaragtay yani naftayda ayaa ku qanacsan inaan islaamo oo cid i qasbaysaana ma jirto cid lacag igu siinaysaana ma jirto aniga ayaa ku qancay islaamka sidaas ayuu ku muslimay dhakhtarkaasi lagu magacaabo wadiic sulaymaan ama wadiic axmed sulaymaan oo ahaa ma garanaysaa shamaamista ama xerta kaniisadda ka heesta qisadaasina intaas ayay inoogu dhan tahay hada wabillahi tawfiiq وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فيديو قودة راضي رالي هذا لكن سوح بدن ومقرنسا وناقة باكو جري